gudoomiye Jawaari iscasilaadiisa xildhibaanada qaar ay xaqiijiyeen waxa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ay noo soo socdaan xildhibaanadaas laakiin hadda waxa stuudiyaha si toos ah ugu sugan xildhibaan Sakriye Xasan Sheekh Cali oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanku waxa uu warbixin inaga siin doonaa aragtidiisa ku aadan arrimaha baarlamaanka waxa uu muuqday waliba howlaha horyaala baarlamaanka Soomaaliya ee laga dhursugayo intaba xildhibaan Sakriye markuu ku soo dhawo barnaamijka Wardoon iyo TV-ga Soomaali Cable وتاي أحد كم يتاي حلوانات برلمان كصوماليا ولي حلوانات دا دير أرمها برلمان كان طبعا تضباطي دمسيدون وضح مقضي ساك ورا يسوب حي قدومي جواري إنه إسعزل الشيء حلوانات قارن ويا حقيقيا أرنت إسعزلات كور نحكوا كتاي وإسعزل قدوميها وواحدة سي الشرعي أيون إسكو عزلي وحوي واحد إسكو هاي مركو روح هيد قابك أيود عايسو وضعين تقدوميها أما حلك قادستيسا oo mooshin ay ka keeneen xildhibaanada qayb kamida marka systemka hadda uu kaga baxayna waa qaab ma garanaysaa labada dhinacba ay soo dhaweeyeen oo ma garanaysaa sharciga waafaqsan waayo gudoomiyuhu inuu iscasilo xaq buu leeyahay xilligu doono istiqaalo dhiibo haddii uusan dhiibinna waxay ahayd in loo codeeyo codeyntana ay qarsoodi noqoto marka hadda sida uu sameeyay aad baan u soo dhaweynay dhamaanteen waa inaan sharciga la jebin baan anagu ku dagaalameynay sharcigiina hadda lama jebin oo gudoomiyihii asaga ayaa iscasilay iscasilaadaasna waa wax ma garanaysaa markuu la tashaday xildhibaanadii garabkiisa ahaa saaxiibadiisa uu la tashaday in badan oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ay u soo jeediyeen xilligan in ma garanaysaa wadanka uusan caqabad iyo buuq uusan gelin aad baan u soo dhaweynaynaa watahay waxaad kamid tahay xildhibaanada aad kugu dhawaa gudoomiyaha wuu iscasilay adigana waa noo xaqiijinaysaa laakiin ilaa hadda gudoomiyaha kamuusan hadal haddii aad wax ka ogtahay sababa uga hadlo oo xaqiijiyo maxay tahay iscasilaada gudoomiyaha waxa weeye istiqaalada warqad inuu ku qoraa muhiim ah uuna geeyo xafiiska golaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa warqad loo dhiibay oo ka gudoomiyay laakiin bulshada inuu la hadlo soo ku ogeysiyo laftirkeeda wax loo baahnaa ma ahayn wuu la hadlayaa golaha baarlamaanka oo dhan wuu la hadli doonaa dhinac walbaba in la isu keeno oo si guud ula hadlana waa la qorsheynayaa iyadana insha Allah maxaa waqtigan ku soo beegay iscasilaadiisa maadaama muddo uu mooshin ka soo socday waa sida la socoto kala qaybsanaan ayaa golahii dhex timid gudoomiye Jawaarina waa nin oday ah waqti wax badan ka soo shaqeeyay wadankan in marka xaaladdu ay sii cakirnaato oo sida loo sii kala qaybsanaado ayuu qaadan waayay marka wuxuu ka doorbiday inuu midnimadii golaha uu ka shaqeeyo oo uu iscasilo waa tahay baarlamaanka hadda maxaa horyaala xubin baarlamaanka ka tirsan ayaa tahay mooshinkii iyo khilaafkii dabcan dhinac ayuu hadda maray baarlamaanka maxaa horyaala laga sugaya baarlamaanka waxaa horyaala muddo 15 maalmood gudahood inay ku soo doortaan gudoomiye rasmi ah howlahoodii hore oo horyaalay oo hakadka galayna inay hore u galaan ayaa loo baahan yahay oo ay kamid tahay shuruucdii akhrinta koowaad qaar galay qaar akhrinta labaad galeen arrintii hadda xuduudaha oo maan dhaweyto oo gudoomiyuhu uu ka hadlay in ma garanaysaa in laga hadlay ay muhiim tahay howlo badan baa baarlamaanka horyaala waa tahay 15 kaas maalin ma wax sharciga uu dhigaya waxa dhigaya xiroosadka dhigaya baarlamaanka waa gartay xildhibaanadu dabcan aad bay u kala aragtiyaan u kala duwanaayo laba garab ayaa loo kala jabay labadii garab ee loo kala jabay ma sii soconaysaa mise meesha way ka ma soconayso arrintii loo kala qaybsanaa waxay ahayd qaabka gudoomiyaha mooshinkiisa loo maareynayo oo codeynta u dhacayso mawduucaas uu xirmay hadda wixii ka dambeeyay baarlamaanku waxa weeye golaha shacabka waa hal waxaan ka shaqeynaynaa midnimadooda taasaan danta qaranku ku jirtaa wixii loo kala dadku kala aragti karaan baarlamaanku inuu kala aragti doonaado waa waxa loo sameeyay golaha waxay matalayaan ummadii oo dhan bay matalayaan dadkuna is aragti ma noqon karaan balse waxaa muhiim ah markii arrin sidaan oo kale ay timaado in tanaasul yimaado haddaan tanaasul imaanin waxaa qaranka jabaya marka tanaasulkaas uu sameeyay waa la socotaa madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo xilligii uu ahaa ra'iisul wasaaraha go'aankii uu qaatay ee tanaasulka ahaa wuxuu qayb weyn ka noqday wishii uu helay 8 February oo ma garanaysaa shacabka Soomaaliyeed ay ku siiyeen muxuu ahaayeeto taageero badan tii mid la mid ah ayaanu gudoomiyaha ku soo dhaweynaynaa waa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ta xog badan haya gudoomiyaha cusub ee imaan doona ma wuxuu u furaya muwaadin walba oo Soomaaliyeed mise dad gaar ah u tartami kara dhanka nidaamku qabiliga ee dalku ku dhisay markaa nidaamka oo qabiilka ah
nidaam hadda si rasmi u qoran oo reehbal kursigaasi leeyihiin yiraahdo ma jirto haddana maadaama wadanku uu burburay annaga gol ahaan waxaan ku nimid axzaabka maanaan imaan waxaan ku imaanay qaab qaybsi qabiil marka marka la eego qaabkaas ayaa kuraastu ay ku dhisnayd marka sidii mid la mid ah inay noqoto waa suuragal laakiin wax ka xadidaya oo dhahaya ma sharaxi karo reer ma sharaxi karaan ma jirto cid walba u furan tahay qof kasta oo golaha ka tirsan waa inuu golaha ka tirsan yahay baa shardi ah oo xildhibaan yahay xildhibaan kasta oo CV-giisa la yimaado oo u tartama waa laga gudoomayaa oona codkaana la siinaya beeshu doona kasoo jeeda waa gartay maadaama dalka 4.5 uu dhisan yahay xildhibaanka rag ku beela xilalka sare ay hayaan mu tartami karaan gudoomiyaha ma wax diidaya ma jirto oo tartami karaan waa tahay oo sharciga ka marimaanay waa tahay marka aad eegno baarlamaankii muddo bil sidoo u furmay kalfadhigii saddexaad habacsanaan badan laga dareemay gudoomiyaha si hayaha gudoomiyaha shaqadii caadiga isaga ma laga sugaa mis ilaa gudoomiye laga dooranayo waxa ma shaqeynaya maya gudoomiyuhu hadda si buuxda ayuu awoodii gudoomiyaha oo dhan u haystaa wax khilaaf hadda awal waxa khilaaf baa jiray laakiin hadda wax khilaaf ma jiraan gudoomiyahana asaga xilligan inta gudoomiyaha rasmi laga dooranayo si ku meel gaar u haynaya awoodii uu gudoomiyaha u lahaa koobaad oo oo dhan waxa hadda la wareegay gudoomiye ku-xigeenka koobaad waa tahay iscazilaad gudoomiye jawaari beesha aan ku leh wax loo kuma lahayn waa un talab cid aan ahayn golaha dhexdiisa oo tala kale ma jirto doorka madaxweynaha ka war madaxweynuhu kulama jir maalmihii dabcan socday madaxweynaha gudoomiyaha ay yeelanayeen madaxweynuhu kulamadiisa waxay ku base gareysnaayeen dhexdhexaadin oo u kala qadab qaaday labada dhinac marka dhexdhexaadintu si un bay ku dhamaan lahayd waa laga yaabaa in aniga kulay fadhi ay wada fadhiyeen qayb kama aan noqon laakiin inuu dhexdhexaadin ka shaqeynayay baan la socdaa waa tahay xildhibaan ahaan maxaa ku muuqda hadda dareemaysa adiga waxaa ii muuqda aniga hadda in golihii markaan wixii ka dambeeya loo baahan yahay midnimadooda si looga shaqeyn lahaa oo hadalladii xanafta lahaa oo la isdhaafsanayay laga gudbo oo hadda gudoomiyuhu laftigiisu gudoomiye jawaari gudoomiye hore laftigiisu hadda wuxuu qalqaalinayaa inuu isu keeno baarlamaankii oo dhan oo ayagoo midaysan uu sagoontiyo taasuu rajeynaya insha Allah waa tahay gudoomiyaha noocee rajeynaysaa in gudoomiye jawaari uu bedelo adiga gudoomiye waa inuu golaha shacabka ka mid yahay kulley waxaan arkaynaa cidda isu soo sharaxda ayaan kala dooranaynaa waa tahay aad u mahadsantahay Xilwa Sikri